horta dee waa ogtiinoo somalilan doorashooyinkii baan qabsan kari lahaanay oo dimuqraadiyaddeenni waxay noqotay mid dhutinaysa oo mar walba dib loo dhigayo waxa la isku qabsanayo arrinkan baarlamaankana waad ogtiinoo waa baarlamaan dee laba timan baa la dooran lahaa oo kaleeto baarlamaankaasina waxa la leeyahay iyagii baa la doonaya inay wax badan ansixiyaan oo ay kuraasidii banneeyaan dee u malayn maayo nin kursigiisii dee leeyihin inuu dantiisu eeganayaa muddo korinta la sameeyeyna aan waxaan arkay in degiya dambas baa la kala iibsaday oo doorashadan aniga shakhsiyan fiyugeyga doorasho 2019 ka dhacaysa ma jirto kuwan kordhinayna way og yihiin komishanka qaranku way og yihiin kuwan xisbiyada laftirkooda way wada og yihiin waxaan isku wada meersan laakiin shacabka been loo sheegay beesha caalamka been loo sheegay waa loogiye komishanka laftirkiisa waxay yiraahdeen anagu muddo 10 bilood aan u baahanahay marka wax walba lagu heshiiyo waad ogtiinoo arrinkan komishankuba maaha anigu dadka imika komishanka ku mashquulaan oo hal la bedelay qaar kale cusub iyo waxa maaha arrinka ka weyn waxa weeye arrinka saama qaybsiga beelaha Somaliland iyo gobolada oo ah arrin ka ugu weyn ee hortaagan doorashadaas inay dhacdo maaha komishanka sida dadka dal loogu dhigayo hebel baa komishankii diiday iyo hebel baa doonay komishankii joogo arrinku uu ka weyn yahay marka waxa leeyahay siyaasiyiinta Somaliland dadka runta ha u sheegaan dhibaatada ina haysataa waxa weeye marka siyaasigeeni weynaa dadkii ummadda ay been sheegayaan waa mid subxaanada weeye marka aanu arrinkan waxaan u arkaa mid degdegay dambas baa la keensaday shicibkuna dee way arkayaan badankoodu doorashana inaan dhici karayn sababta kuwii komishanka qabanayay doorashada qabanayay waxa ku leeyahay anigu 10 bilood oo maartay nadiif aan u baahanahay maxay imika ku dhiman bil baa dhamaatay sanadkii 12 bilood baa ku dhiman bilna lagu heshiin maayo oo weyn ognahay oo inta socoto oo komishanka qabanaya oo tan laftirkiisa la isku haysto ka qaban doona marka waxaan leeyahay golaha guursidun baa ka xishootay sideeda caadiga ahayd in labada sanadood iskaga dhufatay horta waa ban hambalyeynaya oo markii ugu horreeyay ay sanad wax ka yar ay ku dhuftaan taariikhda inta Somaliland arkay marka waxaan leeyahay war doorashooyinka dadka saama qaybsiga iyo arrimaha doorashooyinka hortaagan si saraaxiya looga hadlo oo haddii noqonayso in dastuurka la furo hal furo maxaa diidayeen dastuurka la furo dastuurkii dhamaan waxaan mooday inaan ka baqanayno intii uu cigaal sameeyay ayad moodaa in aan maalin qorata hal qodob lagu darin hal qodobna aan laga ismoodaa dastuurkana meel badan oo qabiyaha baa jira marka waxaan leeyahay dadka runta aynu soo sheegno doorashooyinkana waa wax dalka dhigaya ee ummaddu in caalamka noo soo jeeday iyo dimuqraadiyaddii ka hana qaaday yaanay noqonin mid maartay hal bacaad lagu lisayaa noqonay waa noqota mid hana qaado oo shicibkuna ay diila siisa wassalaamu calaykum